hubka noocyadiisa kala duwan ee sida qarsoodiga loogu iibiyo magaalada Muqdisho ayaa sare u kacay tan iyo markii uu xoogeystay mucaaradka Soomaaliya iyo walaac laga qabo in madaxweyne Farmaajo uu ku shubto doorashada Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa si xawli u iibsanaya rag ka soo jeeda shanta beelood ee ugu awoodda badan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ka soo jeedaan inta badan musharaxiinta mucaaradka kuwooda ugu xooga badan Soomaaliya. Qoriga AK-47 oo qiimihiisu ahaa $700 ayaa hadda maraya ilaa $2,000 halka dabajeexu uu gaaray ilaa $20,000 ilaa $25,000. Bastooladaha iyaguna gaaray ilaa $3,000. Dadka hubkan iibsanaya waxay sheegeen inay diyaar u yihiin dagaal haddii ay dhacdo in la boobo doorashada Soomaaliya oo uu Farmaajo isku dayo inuu ku shubto. Lacagta hubkan lagu iibinayo ayaa waxaa bixinaya dowlado shisheeye oo ay ka mid yihiin dowladda Imaaraadka sida warbixinta lagu sheegay iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliya. qoryaha gacanta ee ka mid ah hubka sida joogtada loo isticmaalo ayaa aad qaali uga noqday suuqyada madow ee magaalada Muqdisho. Iibsiga hubkan sida xawliga loo gadanayo ayaa muujinaysa waji colaadeed iyo in la kala shakiyay oo nidaamka dowladnimada aan hadda lagu qanacsanayn sida ay wax u wado villa Soomaaliya iyo xitaa in qof walba uu naftiisa difaacdo. dadka iibsaday hubkan ayaa ugu badan mucaaradka dhalisan habdhaqanka dowladda iyagoo qaba in xukuumadda madaxweyne Farmaajo faromorsanayso maamulka doorashada oo la wada leeyahay, taasoo natiijadu noqon karto in wax ka badan hal madaxweyne ay yeelato xamar inay iska difaacaan hubka ay iibsadaan ama musharaxiintu. mucaaradku waxay tusaale nool u soo qaadanayaan haddii doorasho ogol lagu wada yahay aan la qaban, waxaa dalku wajahaya colaad la mid ah midda ka taagan Itoobiya, gaar ahaan ismaamulka gobolka Tigreega. villa Soomaaliya hoggaankeeda ayaa iyaduna aaminsan in maamulka doorashada iyo halka loo jahaynayo waddanka aan tash looga baahnayn mucaaradka, waana ismaandhaafka sababaya in dowladdu adeegsato awoodeeda ciidan mucaaradkuna hubka yaala suuqa madow ay iibsadaan. lama garanayo halka ay saldhigan doonto dabayshan siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay dalka Soomaaliya xilli ay waqti dhow naga xigto xilliga la qabanayo doorashada dalka ayna ka yar tahay muddo 2 bilood ah. wali Farmaajo wuxuu ku sii adkeysanayaa in uu isla saxan yahay una ay tahay cidda mas'uuliyadda leh inay guddiga doorashooyinka ay magacowdo ay tahay iyada, balse mucaaradku waxa ay wali walaac ka qabaan ayna ku baaqayaan in laga saaro dadka ka tirsan ciidanka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka oo ah dad aad u taageersan Farmaajo, taasoo meesha ka saaraysa in doorasho xalaalihi dalka ka dhacdo.